section 3.8 waxaan kusoo gabagabayn doonaa AI prompt practice for recruitment letters dhammaan waraaqii aan soo qaadanay oo dhan sidee ula kaashan karnaa ama uga heli karnaa xoogaa caawinaad ku saabsan anagoo ka faa'iidaysanayno AI-dan oo maalmaha dambe aad u sheeg oo suuq u gashay. Okay, simple waa inaad taqaanaa some prompts, waa inaad taqaanaa qaabka loola hadlo, ereyada loo weydiiyo waa inaad taqaanaa. Marka adigoon is dhibin waa inaad weydiin kartaa, kadibna aad si aad rabtid inta qabatid wixii kaa anfaco aad ka qaadan kartaa. Sida hore usoo sheegnay, ma ahan an AI-ga wax 100% adiga wada qaadan karto wuxuu kusoo saaro. So mar walba wuxuu ku siiyo waa inaad iska shaandhay kartaa, wixii kaa anfaca ka qaadan kartaa, wixii aadan rabinna waa inaad ka tuuri kartaa. aan isla fiirino hadda application letter rabtaa inaad qoratid ama CV sidee loogu qori karaa, sidoo kale invitation to interview rabtaa adigoo boss ah inaad qof u dirtid see u diyaari kartaa promptigiisa and so on. So mid mid aan u fiirin doonaa sambalkana markaa heshid adigana dhammaantood mid mid u gelin kartaa adigoo uga bedelanaya markaa. Hadda marka aan ku bilaabano 1 iyo 2 aan ku bilaabana markaa si aan sambal yar aan uga helno markaas. Okay, bal asla fiirina markaan sidee AI-ga aan anagoo ka faa'iidaysanayno, let's say ChatGPT aan rabnaa ka faa'iidaysano, sideen ugu diri karnaa warqad cover letter oo kale. Okay, kasoo qaad waxaan rabaa in aan xareeyo shaqo oo marketing officer ayaa waxay ka banaan tahay, let's say IBS Bank ayaa waxaa ka banaan marketing officer. Okay, marka waxaan rabaa inaan ii qoro warqad yar oo ku saabsan cover letter oo cadeynayso inaan shaqaas aad u xiiseynayo. Very simple. Haddii hadda aan kan soo koobiye, write a professional cover letter for a marketing officer at IBS Bank. Okay, bank magaciisa waa sheegnay. meeqa sano oo khibrad leedahay? Maybe 2 years. With 2 years experience in marketing and business, let's say. Okay, skills ka leedahay sheeg markaa. Skills ka leedahay maybe waxaa leedahay report writing, maybe teamwork, your communication skills ka wuu fiican yahay. So keep it formal and concise. Marka qodobkan waxaan sheegay kaliya fadlan soo koob leebis. Marka daanta fiirina hadda simple wanu sheegaya markaa. Okay, wakana markaa haddii aan fiirino qodobadii aan soo barnay kullu ku xusan yihiin, sida introduction inaan u sameyno shaqada aad soo dooratay, shaqadee waaye, maxaa u mudanta adiga, noo sheeg shaqadaada wax nooga soo sheeg, kadibna u mahad celi una sheeg inaad diyaar u tahay company-ga. Tusaale hadda inta waxaan ku yaala firi, I'm writing to express my interest in the position of marketing officer at IBS Bank with 2 years experience in marketing and business. You see, I have developed strong expertise in designing strategies that enhance visibility and build customer engagement. In my previous role, I contributed to marketing. You see, waxaas dhan sheeg marka wixii aad soo sheegatay ayuu ku qarxin doonaa markaas. Okay, marmarka qaar marka inuu ka badbadiyo dil alla u aragtid waxaa dhici kartaa marka ii soo yareeyo humanize na dhici kartaa markaas. xogta ay siisanay xogtan waa laga dareemaa in waxaan robotic yihiin ka badbaas badan ku jiro, bal xogaa yar bini aadan wax oo qora ka dhig. See,
marka kaas ama xogaa rujil ay I am excited to apply the marketing officer at IBX Bank over the past 2 years, you see. Marka adiga marka waxa laga rabaa inaad qalqaloocan kartid adii kartid marka iyare make it short bal xogaa gaabi wax dhir badan aniga ma jecli always waxaan jeclahay leeyahay tusaalaan rule loo yaqaan kiss rule keep it short and simple kadib marka dad kana very to the human resources department kana marka waa very short ayuu ka dhigay marka ka soo qaad CV iyo qor okay write a CV and my name is Ali Ahmed. Okay. My phone number. I'm course I'm better than I do. Okay. And I have a bachelor of business and administrations. Okay. With 4 years experience. Okay. marka CV qor doona dan CV-ga uu ku qoro simple adiga soo qaado ku bedelo marka template ka haysatay ayaa ku bedelan kartaa simple wuxuu ka bilaabada personal summary ama profile ka ayuu ku bedelan kartaa education ka adiga ku bedel meesha marka bachelor of business administration jaamacadda magaca inta ku sheeg magaalada ku taalo iyo sanadka ka qalin jabisay experience-ga kana marka marketing and business officer company X maxaa ka qaban jirtay company kala sheeg you see skills ka leedahay luqadaha taqaanid reference-ga available upon request hadii la alla u baahtidna reference-ga waa sheegi kartaa reference-ga badan waxa la sheegaa qofka magaciisa title-ka uu hayo iyo position-ka uu ka hayo marka waxay la tahay dhammaan wixii ku saabsan sampleska CV-yada oo dhammaan waa ku soo attach garan doonaa in the course descriptions ka dhammaan markay resource-ga heli doontaan marka adiga waxa laga rabaa kaliya inaad taqaanid sidee ChatGPT-ga ama Google Gemini sidee loola tacaamulaa sidee wax loo weydiiyaa kaliya wuxuu ku weydiinay waa inaad taqaanaa sida oo loola tacaamulo insha Allah marka see you insha Allah